dhalay hilowle guya xaysno doo hilowle hadda gaaxdi la dhamaye hilowle ugogoyay gablaha ugoyo gamugasi ugogoyay gablaha ugoyo gamugasi haddan guulaysano hilowle hadduu geelenu dhalay hilowle guya xaysno doo hilowle hadda gaaxdi la dhamaye hilowle ugogoyay gablaha ugoyo gamugasi ugogoyay gablaha ugoyo gamugasi kulanti waxaan oo wanaagsan dhamaantiin dadweynaha sida habsamida hanaaka iyo hufnaanta lagu soo qayb galay munaasabadeenna habeenka caawa aynu ugu dabaaldegayno xeer ciise samsay oo filaya xafladan oo dunida caalamka oo dhan ka dhacday hase yeeshee habeenka caawa nasiib wanaag loo yeeshay inay ka dhacdo dalka UK gaar ahaan magaalada London barnaamijka ayaan hore u galayna waxaan rabaa marka hore inaan u yeero Sheikh Abshir si inuu ku bilaabo aayadaha Quraanka Kariimka فليتفضل شيخ أبشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دمان مرتي شرفت كسو قيب قشواد ما سنتهين آيادهانا إلهي نقو أنفعو كوي قلوبتو دقوي الله نقدقو وحان كعدسننا دمان دادك وينتو جوكتا باش عيسى بدو ما سنتهين يا مرتي شرف كسو قيب قشي برنامجك أني قو سمسم حسنا ويدكو سو دوينيا وحان لي موردن ويلكم بدو ما سنتي مدرشا قروحة بدلنا عاوز كوكوني مني waxaan insha Allah ku dadaalnaa in codka hoos u yar dhigno inta barnaamijyadu inoo socdaan aad baad u mahadsantihiin jazakumullahu khayr wayahay xafladii la sugayay la saadaalinayay الحفلة لسوقية لسادالنا يا لو صعبتهم يا صحافة أدونك يا صويال كلا قول جاي سندي تايمز لقو قري دادوسو سعدالين سفر ليرنا ويمي ساتر مهدي ويان وسبتي يا سعدا لجوجية هذا السكة كالنقطية أنت ثبت كجوكتاي أنا يا سمسم ويسود ويننا همبرية سلان إياه هبنا يقدو سلا وعرف أمرك ورينا عد في اليها ودي بقدوم يها قد قبل قابضة أولا يوسف نور وابيك برنامج كعاوة نقدر قيب كذا أهنا قد قبل قابضة مقعد كوهذه الدورة سودو وانا هاي إلهي بس سبحانه وتعالى مهلا هل كان سوكين كياني مضنان يا ماموسنا وحاله ولا لا لنك سوق قيب قلي شعب كصوماليات عاديات بعدهم بعد سنتين سيدا مانتان حسينو حفلة دين نقاليقا قونسيقا حير كعيسى لغا قونسدي يونسكو أما يونايتد نيشنز قونسدي runtii annaga waxay noo tahay sharaf iyo karaamay noo tahay inaan waqtigan maanta han nasiib u yeelano inaan joogno xeerka maanta loo qoonsaday maanta adduunka oo dhan looga dalbaadegayo anoo magaca ku hadlaya walaalaha UK ee beesha Ciise Weyne waxaan aad iyo aad halkan ugu soo dhaweynayaa marti sharafta halkan ee beesha Ciise Weyne iyo marti sharaf kale Soomaaliyeed ee halkan ka soo qayb galay xafladan waxayna runtii aad iyo aad mudnaan weyn u tahay Soomaali oo dhan maanta markii hore xeerkaasi reer buu ku koobnaa maanta wuxuu noqday xeer Soomaaliyeed buu noqday xeer maaragtay wuxuu noqday international oo gali doona hantida guud ee maaragtay adduun weynuhu ay wala wadaagaan marka anoo kamida walaalihii xafladan qaban qaabiyay aad iyo aad baan dhamaan shacabka Soomaaliyeed iyo waxa halkan inala jooga wadanka Itoobiya ambassadorkii ku sugeenkiisii baa inala jooga isagana aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa marka kullay waxa weeji wax waliba dad baa bilaaba xeerkan odayaal baa dhigay qarni hore sanadaan hore 5 qarni 6 hore ka hor maantana nasiib inagu waxaan u yeelanay maalintii loo qoonsaday oo international noqday marka waxa weeji walaalayaal aad iyo aad baan nigu mahad celinayaa waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa walaalihii xafladan ka soo shaqeeyay gaar ahaan hablaha aad iyo aadka ugu maartay waqtigoodii u maartay u galiyay inay xaflad qurux badan inoo qaban qaabiyaan
aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin ku soo dhowaada waan barnaamijkan waxaa maaragtay runtii aad iyo aad buu badan yahay marka walaalaha xafladda wala yimid dhammaan hadalkeena la joojiyo oo si toosa maaragtay aan iskugu dabaridno maaragtay barnaamijkeennii aad iyo aad baad dhammaantiin u mahadsantihiin idinkoo mahadsan waxaan rabaa markaana inay la soo dhoweysaan Mustafa Wacays بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان مرت شرفت كسو قيب قش شركة حفلة عاورة نوقع مقابيين دليرتو وحن له كسو دول هذا لما أنت سووا الدول هذا أمباساديركا صلادينتا واسكا عاقل هذا نقرأ سو قيب قال لما أنت وحن له سو دول هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهي سمسمي waad mahadsantihiin adeer Mustafa aad baad mahadsan tahay Mustafa waxaan aad ugu mahad celinayaa sidoo nooga soo qayb galay waxaan halkan aad uga salaaminaa oo aan aad ugu faraxsanahay xafladii ka dhacday Diridhabe ugaaskaygu joogay waxa la si qurux badan bay u dhacday waxa leeyahay dhammaan anaguna maantaan farxadii idinkala qayb qaadanayna walan soo yardaahnir laakiin waxaan leeyahay dhammaan dadkii xafladda soo qaban qaabiyaguna aad bay qurux badnayd waana salaaminaa dhammaan insha Allah hay وهي دب نقول قلنا برنامج كأني سمسمي واحد ربنا ويا سعيد جامع جنجل سعيد جامع جنجل إنه ويا ربا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعد سعيد جامع ويان waxaan doonayay dhowr kalmadood inaan ka idhaahdo xafladan xeerka anigoona ahayn specialist xeerkan ahayn kamana qorin ma aragtay wax kamaan qorin se anigu teeskaygu waxay ahayd luqadaha geeska Afrika ayaan ku sameeyay teeskayga se marka la eego xeer ahaan xeerka Ciise waa xeer si wanaagsan loo qoray loo sameeyay imikana qoraalkiisa si wanaagsan loo qoray oo UNESCO-guna maad aragtay si fiican u qaabishay markaasi xeerka aqoonsigiisu waa muhiim marka xeer la samaysto muhiimadiisu xeerku waa inuu shaqeeyo xeerka la isticmaalo soo xeerku u noqdo xeer jira kolka xeerka Ciisuhu intaas waa la isticmaalayay ilaa waqtigan joogno waa la isticmaalaa kolka xeerka muhiimadiisu waa in la isticmaalo talabaad waa in la qoro tasaddexaadna marka la isticmaalo ee la qoro ee xeerkaasi jiro waxa muhiima in wixii aan socon waaya iyo waqtigu sidoo isku bedelana la bedelo oo la hagaajiyo marka ilaa imika xeerka dadkan imika jooga ee isticmaali waxay ku biiriyeen ma jirto muhiimadda xeerkuna waxa weeye nidaamka si uu uga noqdo uu isku taago xeerku waa inuu yeesho maad aragtay waxyaalo muhiima oo ay ka mid tahay in taliyaha xeerka matalan ugaasku waxa weeye madaxa xeerkaas ilaalinaya weeyaan ee dusha ka jooga ee u dhaxeeya maad aragtay Ciisaha iyo xeerka aad baa u mahadsantihiin waxaan ogeysiinayaa dhammaan dadka soo qayb galay munaasabadda habeenka caawa ee barnaamijka nagala qayb qaadan doona inaan qof walba siin doono qadar kooban oo markaasi hambaladiisa iyo bogaantiisa ku bogto waxaan rabaa iminka inaan u yeero wali waxaan barnaamijka kaga jiraa guddiga qabanqaabada Maxamed Gabad Aare ayaan u yeerayaa Maxamed Gabad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامة السلام كارودا نقول سلام يا دمان وحن نقول سلام يا نبا كرامة دو ألسية يا شرف دو ألسية يا نقول سلام يا وأنا من هالسنتين سيد حفلة دو قصة قيب قشين بيش عيسى يا ولا لها الصوماليات أدي أد من هرت نيجو مهل علينا هذا كان نقول بدل ما يو وقت نجمع عنايو وحن ويركعهم بس إن ما ركتي سود وهذا نيرا xeerkan haddaan u soo yara noqdo
xeerkan ciisaha in yar haddaan u soo noqdo dee miidiyahaad maanta kala wada socotiinoo looma baahna inaa qof loo macneeyo oo taas waa ilaahay mahadii laakiin in yar haddaan ku darsado waxay tidhahdaa Soomaalidu waxa la yiraahdo waqtigan maanta lagu jiro dhulku iminku carshoobu nin walba cawadi waaye iyo nin walba ka fikira war waxaan lahayn nin walba taariikhdeeni iyo beel walba tidhaa iyo dhaqankii aan lahayn say wax u jiraan laakiin anu waxaan la yaabay xeerkan inaan qarnigiiba waxba isbedelaan leeyahay adduunka 80kii sanaba in loo fadhiisto hoos loo eego oo wixii cusub ay yimaado in wax lagu daro wixii fiican iyo odayadaasi dhigan taasi horta waa taan la cajiibay moogtahay maxaan ku dhahdaayay kolkuu na soo galay guumaystuhu maxaan ku dhahdaayay nin walba deed waxa qaaday xeerasheen iyo dhaqankeenii daadka baa qaaday kani geed buu cuskaday geed adag buu cuskaday odayaashii ku dadaalay iyo dadkii ka soo shaqeynay waanu mahad celinaynaa walaalaha ka soo qayb galna waanu mahad celinaynaa mid yar oo kale aan ku daray oo anigu aan la yar cajiibay ilmada real mid aan ku daray waxa weeyaan dhulkan aan ku joogna qaynuunka nin walba waan naqaan cagta halkaan dhigayno dadkaas xeerka waxay ka bilaabeen kab bay ku sarjareen kabta waa lagu socdaa bay yiraahdeen kabta waa lagu socdaa waxaan ku kala soconaa samaysano waxaan ku kala waayag bilaa kaba hadaata odax baa ku wareemi dhagax baa ku turqi kabta bay ka bilaabeen oo dhageliyaal isdul saaran saasay ku sarjareen inta yar baan inuu oran lahaa mahadna waan nii celinaya waqti nagama cunayo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mahadsanid aad u baahansan yahay maxamed gabal aare bismillaahi raxmaani raxiim waad mahadsantihiin anigoo ah samsam xasan mar labaad baa idinku soo noqday aad iyo aad baad mahadsantihiin dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay meesha rag iyo dumarba leh dadka sharafta leh ee nagala soo qayb galay odayaasha sharafta leh ka soo jeeda Soomaali oo dhan ka soo jeeda aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa kale kameramaanka fanaaniinta hidiyo dhaqanka gabdhaha hidiyo dhaqankaan u mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa dadka safarka soo galay gobolada ka yimiday all the way iyagana waan u mahadnaqayaa waxaan aad iyo aad aan u iloobayn hablii xafladan si fiican u soo qaban qaabiyay ku soo tiiriyo tacabeelay wallahi halka hadan sidoo magacadooda ka tiriya ma ka tiri kareen rag iyo dumarba dhammaan waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida quruxda badan leh ee aad xafladan u soo qaban qaabiseen shaqada loo kala badnaado laakiin quruxdeeda caawa loo simeeyahay si qurux badan baynaynu u wada joognaa muhiimaduna waa intaas marka dawlad la dhisayo dawladda xagga sare ayaa laga soo dhisaa shicibkuna way doortaan marka waxaan leeyahay dawladdii ka dambeysay inay barnaamijkan soo hirgeliso aad baad u mahadsantihiin si qurux badan buu u dhacay waxaan aad ugu mahadnaqayaa beelweynta ciise ee ka soo kala jeeda adduunka daafaheeda oo dhan oo aad calankeedina halkaa ku arkaysaan waad mahadsantihiin codka inoo yareeya iyadoo la ogolaya meesha in 5 minute kaliya la hadlo anigu ma badsanayo anigoo magacayga ku hadlay caawa halkaa waxaan u taaganahay in aan matalo walaalahay gabdhahayga quruxda badan leh halkaa fadhiya iyo wiilasha walaalahaya in aan u turjumo ama aan anigu ka turjumo shucuurtooda iyo waxa ay dareemayaan farxadooda wallaahi laguma kala yaraysan UK oo dhan ayaan leenahay dhammaan halkan waxaan ka salaameynaa cid allaale ciddii xafladaa soo gacan qabatay isku soo dubariday waxaanan aad u iloobayn gabdhahaanan aad u iloobayn inaan aad ugu sii mahadnaqo khaasatan group waxaa jira inoo soo socda oo diyaarin doona hidiyo dhaqankii qoran group oo iyaguna aad u soo dadaalay qaybtii hidiyo dhaqankaa soo diyaarisay gabdhihii hidiyo dhaqankaa soo diyaariyey qayb kale hudheelka caawa aan joogno soo diyaariyay baa jira wallaahi ma soo koobi karayo fanaaniinta inoo heesi doonta dhammaan walaalayaal waan idin wada mahadnaqayaa dadkii gobolada ka yimid aad baan iyagana ugu mahadnaqayaa anigu waxaan leeyahay maanta guul baa u sugnaatay xeerka ciise ee maanta adduunweynaha laga aqoonsaday UNESCO ee 500 sano ka hor la sameeyay ilaahay baa mahadle horta beesha ciise inaga dhaliyay Soomaali haday noqotana runtii
runtii xeerkanna waa xeer Soomaali oo dhan wada leedahay dhammaan wax inaga kelidan inoo gaar maaha Soomaali oo dhan buu wada matalaa UNESCO marka la geeyna micnaheedu waxa weeyaan in lagu daray shuruucdii hore ee ku sii jirtay sharciyadii la aqoonsanaa baa lagu sii daray mooyaane wax beel ciise gaar u ah ma aha adduunka oo dhan baa inala Soomaali oo dhan baa inala leh ummadda kalena way inaga baran doontaa iskuuladeena lagu dhigi doonaa insha Allah in saasi waa taas halka waxaan aad uga salaamayaa oo aan salaanteeda ku darayaa madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle ilaahay waxaan leeyahay iyo waxaan leeyahay marwadiisa Khadra Maxamuud Xayd iyadana hooyo waxaan leeyahay halkaas ka soo salaaminaa annagoo ah gabdhihii beesha ciise in xukuumadayadii dadkii in Djibouti xafladda ku dhigay waxaanan aad u iloobin ugaaskaygii aad baan u salaamayaa ugaas Mustafa waxa kaloon aad u salaamayaa wiilashii dhalinyaradii Djibouti ilaa Diridhabe ilaa iyo meel kasta hidiya dhaqanka iyaguna aad u qurxiyay baan aad iyo aad iyagana u salaamay aanan codkayga aan de soo koobna barnaamijka xiriiriyaha caawaan ka mid ahay anigu horta intaasan insha Allah ku soo gabagabeynaya waxaan leeyahay dhammaan UK insha Allah meel badan ba xafladan lagu qaban doonaa oo gobolada kamida waananu tegaynaa waananu ka shaqaynaynaa maadaama UK meel ballaaran tahay tani waa tii London insha Allah kuwi dibadana way noo dambeeyaan waananu ka qayb galaynaa insha Allah waad maadsantiin aad baad maadsantiin waayahay markaan waxaan rabnaa inaan barnaamijkiisa kale dib ugu noqono samsamay dib ugu noqono waxaan rabaa inaan u yeero si wada jir ah Sagal Cali Bidhi iyo inankeeda Cali Mustafa Cali idinkoo mahadsan Sagal xafladani waxay ka dhacday dunida caalamka oo dhan waxaana lagu turjumay afaf badan ayaa lagu turjumay marka samsamay waxaan jeclaan lahaa inaa kusoo dhaweysaado Sagal walaashay qaaliya aad baad maadsan tahay tacab badan waa gabadhii lambarada caaw lagu soo galay sameysay waxa soo dada managementkooda waa gabadhii soo sameysay jazaakallahu khair ba inaad ku leeyahay adigana waxaana inoo hadli doono wiilkeeda insha Allah waa ku soo dhaweynaya First of all, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sagal. So sorry. Je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui ont répondu à notre invitation et qui nous ont honorés de leur présence. Ces dernières semaines, ce fut un travail acharné, éreintant, collectif. Il y a eu de hauts et des bas, mais comme le dicton le dit, la fin justifie les moyens. Une équipe extraordinaire qui a bossé toute la semaine d'arrache-pied pour aboutir à cette merveilleuse soirée. Ce soir, ce qui nous ramène à être réunis pour pouvoir célébrer notre héritage qui est le Her Issé, qui a hissé son voile haut et a pris place à l'UNESCO. Nos cœurs ont chaviré à l'unisson. On se doit d'être fiers et dignes de porter ce nom et de faire face à tout ce qui se déroule. Je suis un peu ému. Laissez-moi 2 minutes. Et on se doit d'être fiers de porter la tâche que nos ancêtres nous ont léguée. Une nouvelle page de l'histoire s'est écrite pour nous qui sommes tous témoins aujourd'hui, pour la future génération, pour le peuple somalien. Fier d'être ici, fier d'être somalien tout court. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I just wanted to say I'm really proud to be part of the community where people not only created the Her Issa but managed to preserve it for many centuries. It's been approved by UNESCO in December the 16th, making it an achievement not only for the Issa community but for all Somali communities, which is why we're all gathered here today, because we're all Issa.
iminkana waxaan soo dhammaynaynaa ex-ambassador of Ethiopia oo degdeg aan rabnaa inaan ku soo dhaweyno. We would like to say welcome Leliza Burhano, ex of Ethiopia, the head of the Ethiopia. Please welcome Bankulana. Thank you for this opportunity and congratulations for this historic achievement. Maybe it is one of the milestone in our region and the Horn of Africa. So let me take this opportunity for diplomats, government officials, scholars, those who have been played a great role to register this traditional customary law. Hair is a right. And congratulations. In Ethiopia, we have 9 tangible registered, and we have 17 UNESCO registered heritage, both tangible and intangible. So now, as Ethiopia, we can claim 80 UNESCO registered heritage. And so this customary traditional law has been practiced by Ethiopia and Djibouti in the Somali Isa community for the last 500 years. That is what I learned from my Google. As of now, it is not only your own tradition, your own property, or your own practice. It is a global heritage. It is not only your worries, and I hope my government, Ethiopia, is going to invest to do research, what it means, how we're going to benefit, how it is going to help, what it means for today's generation to solve our social injustice and to keep rules in the road. Once again, thank you so much for this opportunity and congratulations for this historic achievement. Thank you. halkan waxaa joogta walaashay ubax oo ugu mahadnaqaysa oo ugu afkiisa mahadnaqii luuqadiisa lagula hadlay insha Allah. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Bagano dufte galatoma ya kagarati sumana taatani beetanse ha okay, thank you so much. Waa abtigay weeyaan afkiisan ku soo dhaweynayay taawla socda. Thank you so much. Thank you. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. waxaan ka salaamayaa walaalaha qaaliga meesha isugu yimiday. malay maqleen si fiican waad mahadsantihiin meeshan quruxda badan lacaawa halka la isugu yimiday walaalaha qaaliga soo qaban qaabiya hawsha maanta farxad gooni noo tahay inaan dadkayga ku faraxno oo soo dhaweyno awooyaasheen dariiqa cad ay noo dhigeen ayaan maxaa la yiraahdaa ku mahadnaqaynaa waxa weeyaan in la ismaqlo oo wax la wada qabsado oo wax ninka si hawshiisa uu ka soo baxo maanta farxad gooni noo tahay hawsha rag iyo dumarba dhexda loo xidhay. halka waxaan ugu yeerayaa eegas wasiir Barre Faatax oo ka socda beesha Majeerteen aad iyo aad baan ku leenahay soo dhawow baan leenahay insha Allah. alxamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam. dhammaan akhyaarta ka soo qayb gashay xafladda qiimaha leh ee lagu taageerayo xeerka ciisaha aqoonsiga ee UNESCO aqoonsatay aad iyo aad baan idin salaamayaa waana idin hambalyeynayaa soo dhowaada. markii la sheegay inaan xafladdan ka soo qayb galayo xeerka ayaan xoogaa ka soo akhriyay. xeerku wuxuu leeyahay la yiri ciise waa ciise nina caana ma dheera Soomaaliduna waa ehel islaamkuna waa hiraan. sidoo kale waxaa la yiraahdaa xeerka waxaa loo sameeyay nimaan xeer lahayn waa xoolo. waxaan kaloo soo akhriyay inuu xeerkan inuu ku saabsan yahay loo doortay 4 wax oo ah in laga hortago dil, dhac, damac iyo mid kale hadda hilmaamay. dhammaantiin waa mahadsantihiin. anagu maadaama aan ka socdo calankayga Soomaalida xeerku waxa waaye xeerkaygii waanu taageersanahay
aad iyo aad baan ugu faraxsannahay sida xeerkan loo hirgeliyay looga shaqeeyay xeerkanna wuxuu qalmaa in maartay Soomaaliya oo dhan lagu dhaqo waayo waxa waay sidii maxkamadoo kale wuxuu u baahan yahay in iskuulada lagu barto la horumariyo dawladda dadkii ka soo shaqeeyay xeerkan dhaqan geliyay ee United Nations gaarsiiyana aad iyo aad bay u mahadsan yihiin intiina ka soo qayb gashay oo waqtigooda sharafta leh uga yimi halka in caawiyo xafladan ka soo qayb galana aad iyo aad bay u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay hambaliyo xeerkuna hayr galo kulligeena hayr anfaco Soomaalina Allah sharfo kulligeena khayr baynu jirnaa insha Allah billahi kariim wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh way hadda waxa u yeeranaa oo aan rabnaa insha Allah inaan u yeerno beesha shaqaaleed oo uu ka socdo Muuse Xuseen بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa sharafii ah anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca jaaliyadda Soomaaliyeed ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaan marka ugu horeysa u mahadnaqayaa oon ku ammaanayaa gabdhaha iyo wiilasha jaaliyadda Ciise ee soo qabanqaabiyey xafladan quruxda badan ee sida fiican loo qabanqaabiyey iyagoo ku maamuusaya xeerka aan weligeena naqiino ee xeer Ciise ee la yaqaano ee aan ognahay inuu soo jiray muddo ka badan 500 oo sano taariikhdeeda aan hayno xeerka maxay ahayday beesha Ciise iyo deegaankeeda u horseeday midnimo iyo sharaf fara badan iyo guulo aan ka war hayno xeerkaas waa xeer Soomaaliyeed Soomaali oo dhanina ay taqaano kana war hayso laakiin loo baahan yahay in xeerka la sii xoojiyo oo la adkeeyo oo la wada qaato oo la kordhiyo xeerkaas waan ognahay waa xeer ka kooban ilaa inta xaqiiqada loo hubo ugu yaraan 100 qodob oo waaweyn oo bulshada isku haya oo guulo fara badan keenay waa xeerka maxay ahayday gobonimada dhaliyay meelo fara badan waa xeerka gobonimada u soo dagaalamay waa xeerka deegaankii iyo dadkii geesiyaasha lahaa geesiyaashii ciidankii ciiltire uu ka mid yahay dadkii dhaliyay ee u soo halgamay dadku aad ba yaqaanaan badankooda waan u malaynayaa aad iyo aad baan ugu hambaliyaynayaa dadka soo qabanqaabiyey dhallinyarada u badan iyo beesha maxay ahayd hawshantadii soo qabanqaabisay Soomaalina isugu yeedhay waxaan filayaa oo aan ku kalsoonahay inuu xeerkaasi sii xoogaysanayo waxaan leeyahay hambalyo 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 dadkii soo qabanqaabiyey xeerkan iyo shirkan waxaan leeyahay guul baad gaadheen guushaas Allah inoo xoojiyo waxaan uga filaynaa inay noqoto aynu ka gaadhno halganka ay galeen ee sanadahan u dambeeyey weliba beeshaas deegaanka xeerkan leh khaasatan deegaanka Soomaaliyeed ee Djibouti dawladda Djibouti halganka weyn ee u galeen Soomaali midnimadeeda mideynteeda iyo dib u heshiisiinteeda inuu sii xoogaysanayo aakhirtaankana aan uga fadhino dawladda Djibouti iyo dadka beesha Ciise inay aakhirtaanka guul ka gaadhaan mideynta Soomaaliyeed iyo isu keenidooda iyo heshiisiintooda والسلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الثناء لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا واحد من المايو بروفيسور كاشيغي لكن وحوم بالله هاي أن ربعنا نمهد اليوم دمان بيش عيسى soo qaban qaabisay xafladan wanaagsan ee quruxda badan ee Soomaali oo dhani ay ka soo qayb gashay
meel kastay joogaanba waxa kaloon leeyahay xeerkani maaha xeer ciise keliya waa xeer Soomaaliyeed waxaanan waxa kaliya ee aan ku daraya waxay tahay xeerka ciise udubdhigay u ahaayeen iyaga sameeyay odayaashoodii baa sameeyay qarniyo fara badan ayuuna jiray waanay ku dhaqmayeen inta aynu ognahay waxaanan jecelahay dhalinyaradan dambe imika soo kacaysa in ay xeerka iyaguna daba galaan oo ma garanaysaa wixii amendment u baahan isbedel u baahan oo ku salaysan diinta islaamka in ay iyaguna wax ka qabtaan ee aanay noqon mid lagu daayo odayaashii hore iyo intii ay dhigeen waayo waqtigu wuu isbedelayaa oo waxyaabo cusub baa soo kordhaya tiknoolajiyaa timid marka waxaan jecelahay dadka dhalinyarada ee soo koraya inay xeerka halkaa ka sii improvement ku sameeyaan dhammaantiin waad salaaman tihiin waxaan rabaa inaan markaan u yeero suldaan mahdi cabdi oo beesha samaroon ka socda markaasi bismillaahi raxmaani raxiim marka ugu horreysa ilaah baa mahad leh mar labaad waxaan u mahadnaqayaa habaryarahay iyo abtiyaashaday abtiyaashayna waan u mahadnaqayaa beelweynta ciise ee dalka ingiriiska ku nool ee xafladda quruxda badan soo abaabushayna aad iyo aad baan u salaamayaa kolley maanta anigu xeerka waa xeerkii hooyaday horta waa xeerkii aabbahay hooyadii waa xeerkii awowgay hooyadii waxa weeye xeer 10 oday ay habaryar u wada yihiin oo ay wada dhaleen weeyaan horta xeerkan waa xeerkaygii weliba anigu waxaan u soo joogay xeerkan oo lagu dhaqmayo oo xarunta booliiska ay cidla tahay oo geed garcasta la yidhaahdo oo meel walba badiyaa la isugu yimaado sida holhol iyo dacasbiyo iyo cali sabiix iyo hadhagaala iyo dhinac walba xeerkan oo lagu dhaqmayo oo subaxii kuyuugu halkee taagan yaho xaruntii booliiskuna ay cidla tahay oo la leeyahay odayaashii ciise garcastii baa raggii kala saaraya annagoo dhallinyara intaan yacno aan daawan jirnay marka geed walba markaa waxaa fadhiya 12 oday oo garcas oo ciise oo garta goynaya oo ciise unu goynayna wixii Soomaali la degan halka uu ku xaqaya marka waxa weeye maanta xeerkii hooyaday hadduu noqday mid taariikhda galay oo international ah oo adduunku ictiraafsan yahay aad iyo aad baan si niyada ugu mahadnaqayaa ninkii cabdisaliimo baa wuxuu yidhi wixii la qoraa qurumahadhee muxuu hadal qiimo leeyahay xeer walba oo cidi leedahay haddaanay qorin oo sida kaa ciise meel la gaadhsiinin dee meel ma gaadhayo kani waa xeerka quraata ee Soomaali maanta magaceegii sare u qaaday dhaqan inaynu leenahay sare u qaaday beesha ciisana waxaan leeyahay dee ictiraafka meel dhow baad u marteene waxa jira dawlado dhan oo la ictiraafine baa tilmaama abtiyaal marka hadalka ku dheeraan maayo reabtigay habaryarahay qurux badane waxa weeye waan idin jecelahay waan idin salaamayaa dawladda Jabuuti iyo madaxweynaheega Ismaaciil Cumar Geelle oon abti u ahayna waan salaamayaa odaygii xeerka ciise qoron abti u ahayna waa Allah u naxariisto waxa weeye intii halka joogtana aad baan wada salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baad mahadsantihiin imika waxaan soo dhawaynayaa injineer Shucayb Cabdi oo ka socda beesha Warsangeli baan leeyahay soo dhawaad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عادي عاد بان ugu mahadnaqayaa soo dhaweynta iyo marti gelinta ay sameeyeen beesha ciise khaas ahaan
jaaliyadda UK waxaan aad ugu faraxsanahay aad iyo aad ugu faraxsanahay اعترافك حيرك عيسى أو شنبغل أو سنة إنك بدن شري وعيسونا ودتك يقولي الصومالية حير سماستي أو تاريخ دير له وتاريخ ذا اللي بس كويت وحن سلام يا سول وجاسك هوض عمرنا يا وجاس مصطفى سلام waxaan kaloo salaan hawada u marinayaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo marwadiisa waxaan idinku salaamayaa reeraha aan wakiilka ka ahay aan sidii uu sheegay suldaankii Samaroon aanu warsan galiyana ma jeerteen iyo warsan galiba Ciisa dhalay waxaanu nahay ciyaalkii abtibaana loo yahay وحيرك يجي دتكو عبتياشيو ومشانو كسو جدني عيسى صومالي والله نمبر 1 والسلام يا باشا عيسى ودن مeel kasta joogto السلام عليكم ورحمه الله وبركاته imika waxaan u yeedhayaa oo aan aad iyo aad ugu sharfayaa beelweynta dhulbahante Khaatume State of Somalia waxaan leeyahay soo dhawow aad iyo aad ban muxuu hayay idinku maadnaqay engineer waxa idin sheegay Cabdirashiid Yuusuf Ismaaciil iyo Maxamuud Axmed Maxamed dhamaantii waxa la soo dhawaada waxaan u mahadnaqayaa sharafta iyo karaamada ay walaalaha iyo Ciise nagu soo dhaweeyeen magacayagii SSC Khaatume ay kor ugu sii qaadeen warta marka hore intaas u mahadnaqayaa in marka kalena waxaan u mahadnaqayaa madashan dhaqanka ah ee caawa aynu isku nimid anigoo ka wakiila ummadda Soomaaliyeed oo dhan ayaan in wada mahadnaqayaa marka saddexaad xeerkan oo ahaa xeer soo jiray 500 oo sano oo la aqoonsaday oo helay aqoonsi caalami ah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay haddaanu nahay ummadda Soomaaliyeed meel walba oo adduunka aanu ka joogno caawaanu ku faraxsanahay anigoo magaca ummadda Soomaaliyeed oo dhan ku wada hadlaya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waa xeer 500 oo sano ka hor jiray waa xeer aad ku dhaqanteen aad ku liimaanteen aad ku horumarteen aad ku guulaysateen oo adduunka idinka aqoonsaday aad iyo aad baan ugu faraxsanahay caawa waxay tahay habeen farxadeed habeen aan soo koobi karayn magacii Ciise iyo xeerkii Ciise oo adduunka oo dhan laga xusay farxad gooniya oo khaasi ah ayaan caawa inii soo jeedinayaa guusha aad gaadheen iyo wanaagga aad gaadheen ku socda guulaysta midnimada adkeeya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waayahay annagoo halkaa ka sii soconayna again waxaa loo yeedhayaa isla beesha dhulbahante oo inagala joogo iyadoo 2 jeer loogu talagalay inay soo galaan waxaan leenahay Cabdirashiid Yuusuf Ismaaciil welcome baan ku leenahay aad ayaan ugu faraxsanahay horta inaan ismaqalaa fiican maanta horta caawa waa habeen weyn weeye waa habeen aad loogu farxo weeye xeerka Ciise guusha keligeen ma idin gaadhin Soomaali oo dhan baad soo goodeen sharaf iyo magac soo hoysanaydin marka runtii waxa weeye waa maalin lagu farxo hambal yaanu leenahay sharaf iyo magac baad soo jeediseen runtiina waxa weeye Ciise waa qabiilada waaweyn ee Soomaalida uu ka mid yahay magaca kule ee degan maxay raahdaa 3 gobol oo Soomaaliya ka 3 region oo dunida ka mid ah Soomaaliya Ethiopia iyo Djibouti ba marka dadkan xafladda soo abaabuleena aad ayaan ugu mahadnaqaynaa waxa weeye xaflad aad u qurux badan hudheelka ugu qaalisan magaalada lagu qabtay mataqaana aad ayaad u mahadsantihiin jiro jooga markana waxaan rabaa inaan u yeero aqoonyahan sare odayaasha guurtida Yaasiin Cabdi Maxamed Bulso Yaasiin Bulso السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا شنطة الصومال هنولاتو شنطة الصومال هنولاتو
هذا مركز هلا دقيست معقول من هلا أتكيستو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول الله يو مقع قولها قورتيدا الصومالية دا يوكي أنا أقول الله مقع قولها نقنكا الصومالية دا يوكي أنا أقول الله مقع علماء الدينكا يوكي أنا أقول الله قويهنكا يوكي يا دمان أنت صومالي عاو هالك كسر قيب كشيء مثلا يسوع حير كان حير عيسى ودقن هوري أدياد وين مارت أنا أنت طبعا تجربة لكن أنت كوربا مقلي وأنا أدو ونفسي بركو حوا حيرنا ومد وحكلها جواي محيا لي هذا شاتشيد ميل وضع دقنه على عمي نوليين مرك حيرك نو جامنا يا إن جوادنا أودي ذا لهاتو نك رجعنا أوديس أو لهذا عاقل كان عرفتيس أو لهذا نك عالم كعلم الدين تيجانا وإنه دين تيسكو معنا واحد ومدرس وشجع لأن يرى نغير وعرجينا يا إن يسكو كان سنادان ودمنا أدوك وسعرنا أنا كل أنت هذا جوكت وده كان جوكت أما قولنا كيما هذا أنا أما دقمين كلا كيما هذا لما أنت وحنا دلك وده كسعرنا هرتا دلك إن أقولنا كنا نسنا نكون فكره محايا الجبوت يسوعون بهاي يسوع هذا هل كان فرده إن دلك هذا قلنا قتي نسته إلا هذا وحنا نسونا وأنتاس مع أمريكا هذا أنت ماشي فديه أي واحد ماشي كهذا سفير كإثيوبيا وعاي سفارة الصومالية ده وعاي هذا وكحنا هنا كم قلنا فدقاس أي مك سفارة ما قاعد نفتح أنا كهذا لا يوم حلا ياي سفارة وحلا حرك عيسى هنو ولا أنت إنه حرجنا وما سنتين وعرب سيدو كلينا الملك النويرو أقويها الموسى جدي هذا هو ما سنة عاوي وسود ويسو طبعا يشد سنة كور أنا قام ماشان حفلة كوبلا ونجيبوت لهذا هذا هو وسود وينيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله شكر رب العالمين إلهي بمحل مركه روح السلام يا ولا لها رجع بوتي دولة رجع بوتي ولا لها عيسى قاسة قوري أيدي سلام يا دومر كعيسى حفلة السوق بقابيات بأيدي سلام يا وحير رالي هذا تتكذب وحير رئيس دقيسنو بليس رئيس دقيسنو مقال كوا مهين لما هذا الكلام ده رئيس مقال كوا مهين بليس أنا أقول عيسى مركل يرادو بيش عيسى وحن كصعد هيل ولال إذا ماذا هيل ولال قبل كهيران جو إذا ماذا قبل كهيران جو هيل ولال بيجا إيش بيو أو شلي يؤدى بيصدق على ما يي أيها كصعداء وحبضنا أيها نقد حيو درس وناد يديك سكوش بدأ كلنا هاي وعن إذا كعب صار مركب مقع عسل كاسكو قرن دالكون باش عيسى الملك استلا جارسيو كورلو قادو قيبها وحبرشده لجيو لايبراري لجيو ميلها wax lagu qoro buugaagta library kasta la geeyo wadamada la geeyo aqoonyahanku waa inuu kaco jiilka soo korayo wax bartay ee luqadda qalaad yaqaano ama luqadda Soomaaliga yaqaana ama luqadda Ciise yaqaana waa inay u kacaan ay dhigaan library-ga waxbarashada يا وعم سيقوري وسلام يا مدحوينها دولة جيبوتي اسماعيل عمر قال مرودي سقط رحيد نواب سلام يا قبلها ري جيبوتي الرئيس كل وايد السلام يا نولادا ميل وناكسن يا خير يا بشبش وبالله التوفيق بارك الله فيكم وعن ربائنا ويرو ولي سره شافي عبد القادر حير عيسى marka la yiraahdo qodobadiisa asaasiga oo waxa kamid ah ciise waa ciise oo nin caarad ma dheera
qodobkaasi waxa uu muujinayaa xeerkan ciise ee halkan aynu u fadhino xuskiisa oo runtii ah arrin uguba oo Soomaali u soo korodhay Soomaali meel kasta oo ay joogtaba arrin u soo korodhay weeyaan waxa markii aan yaraa waxaan maqli jiray xeer Soomaaliyeed iyo xeer daarood odayaashaan ka maqli jiray laakiin ma ayna ahayn wax lagu dhaqmo iyo wax jira oo markaas maqal mooyee wax kale aan jirin laakiin xeer ciise waxa uu muddada la soo gaadhay waxa weeye dadka sameeyay ayaa u kacay oo u taagnaa oo labada gacmoodba ku hayay